mararka qaar qofka ugu khatarta badan noloshaada ma noqdo cadowga kaa fog, balse wuxuu noqdaa qof aadan ka filanayn. waa qofku ag jooga, ka warhaya dhaqdhaqaaqaaga, adiguna aad aaminsan tahay qofkaas, laakiin qalbigiisa uu ka xun yahay tallaabooyinka aad u qaaddo dhanka hadafkaaga iyo horumarkaaga. haddaba calaamadahee lagu gartaa qofka noocaan ah? assalaamu calaykum. waxaan ahay qaasim maxamed. waxaan halkan ku soo gudbiyaa mowduucyo la xidhiira horumarinta nafta, kuwaas oo aan ugu horrayn ku hago kuna dhiirogeliyo naftayda iyo asxaabta igu xihan. ku soo dhowow mowduuceena maanta. marka aad u soo jeesato naftaada lana damacdo inaad gaarsiiso heerar kala duwan, adigoo dejisanaya yoolal cadcad, qorshooyin kala duwan, qaadayana tallaabooyinkii aad ku rumayn lahayd riyooyinkaaga, waxaa qasab ah inaad la kulanto dadku xasdaya. inaad la kulanto dadku xasdaya, kana xumaanaya guulaha aad gaarayso, kuu rajaynaya inaad fashilanto, kana niyad jabto hankaaga, kuuna necbaysanaya si qarsoodi ah, kuuna dhoola caddaynaya sida dadku ugu faraxsan oo kale. keliya aad la kulmayso dhagarrada ay kuu maleegeen, adigoo isweydiinaya halkay kaaga timid musiibada. dadka noocaasi ah waxay si tartiib ah u saameeyaan maskaxdaada iyo kalsoonidaada, balse xaqiiqda ayaa ah haddii aadan lahayn dad kaa soo horjeeda ama ku xasdaya, waxay inta badan ka dhigan tahay inaadan samaynayn wax horumar ah. mar walba cadowgu wuxuu kuu xaqiijinayaa inaad tahay qof samaynaya horumar iyo horu socod, inaad haysato wax aysan iyagu haysan, sida aragtidaada fog ee mustaqbalka, kartidaada iyo dabeecadahaaga, inaad ka fikir duwan tahay iyaga oo aad tahay qof aragti dheer. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 3 calaamadood oo ah calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto qofka noloshaada ka xun ee ku xasdaya ee aan ka fogeyn agagaarahaaga. la socodka dhaqdhaqaaqaaga. dadka noocaan ah inta badan kaama foga, oo waxay kula joogaan guriga, goobaha waxbarashada iyo shaqada, deriska, qaraabada, ama waxayba ka mid yihiin asxaabta adiga kuu dhow. waayo xasid ma jiro ilaa waa mid ay u fududdahay inuu helo xogtaada, weliba si fudud. waa qof awood u leh la socodka arrimahaaga, ogaan kara waxa aad qorsheynayso iyo tallaabooyinka aad qaadayso. qofka xasadka kuu ah si uu kuu dhabarjebiyo ama ugu yaraan uu wax uga ogaado arrimahaaga, wuxuu wax kaa weydiinayaa xogahaaga, sida halka ay wax kuu marayaan. u fiirsa halkan, kama ahna wanaag weydiinta uu ku weydiinayo arrimahaaga, sababtoo ah marka aad la wadaagto kuuma niyad dhisayo oo kuma dhiirigelinayo ama kuma hambalyaynayo haddii aad xaqiijisay hadaf ka mid ah ahdaaftii aad u halgamaysay, balse taas cagsigeeda wuxuu kugu dhaliilayaa inaad faraha la gashay wax kaa tan weyn oo aadan awoodi karin, inaad qorshaysa wax aan adiga kugu habbooneen. hadafka uu leeyahana waxay tahay inaad ka istaagto inaad ka istaagto wax kasta oo aadan isku dayin mar kale inaad tallaabo qaaddo. suurad xumaynta sumcaddaada. qofka xasadka kuu ah maadaama uusan agtaada ka fogeyn oo uu ka mid yahay dadka sida dhow uga warhaya naftaada iyo xaaladahaaga, isagoo ka faa'iidaysanaya u dhowaanshaha naftaada, wuxuu samaystaa hadallo uu kugu sumcad dilayo si uu kugu abuuro cadow cusub. maadaama la aaminayo, wuxuu ka shaqaynayaa sida uu kaaga horkeeni lahaa dadka aad isku fiican tihiin oo uu wanaagga badan idinka dhaxeeyo. xasuusnow, qofkan waxaaba dhibayso wax kasta oo adiga wanaag kuugu jiro, oo wuxuu qabaa mid ka mid ah xanuunnada qalbiga ku dhaca oo uusan dhakhtar daaweyn karin, waana xaasidnimada. ku farxidda jabkaaga. waxaa dabiici ah marka uu qof la halgamaya nolosha inuu la kulmayo simbirarxyo iyo caqabado culus oo ku horgudban waxa uu ka doonaya nolosha, kuwaasoo qofka ku abuura quus iyo niyad jab. waqtiyadaas oo kale qofka xasadka ku ah naftaada wuxuu dareemayaa farxad iyo guul, waxaana caddayn kugu filan marka aad gasho xaaladahaas oo kale. wuxuu kugu dhahaa, aniga horay soo kuguma sheegin inaad isdhibayso, aniga soo hore kuguma sheegin waxaan inaysan suurtagal ahayn oo aad dhibaysa naftaada. waan ogaa inay sidan kugu dhacayso, hadal ma maqlaysid ee ha kaa saarto. haddiiba intaan alla kugu simay, alxamdulilah inta dhahdo, iskaba jooji waxaan oo dhan. hadalladaas iyo kuwa ka sii culus ayuu ku niyad jebinayaa qalbigaaga, halka dadka kuu wanaagsan ee naftaada jecelna ay kugu dhahayaan, dhib ha u arkin, cashir ayay kuu tahay.
caqabaddan way iska dhammaan doontaa. haniyad jabin, khayr ayaa kuu dambeeya. adkayso, rag waa kii kufa misana kaca. ugu dambayn, qofka riyadaada kaa hor istaaga waa qof aan isagu riyo lahayn, waana qof ku imtixaanan ku mashquulidda nimcooyinka alla siiya dadka kale, balse isaga uusan arkayn nimcooyinka xisaab la'aanta ah ee loogu nimceeyey. hagaag, inta aan goor dhow ku wada kulmi doonno muuqaalka xiga oo ah sidee loola dhaqmaa dadka xasadka ku ah naftaada. waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.